Sheekadeenni maanta waxay ku saabsan tahay gabadhan oo ahayd gabar aad iyo aad u wanaagsan oo la shaqaysan jirtay waxayna iibin jirtay qoryaha waxayna ahayd mid lacag ka hesha laakiin waxaa dhibi jireen gabdho wadada u taagan mar walba midabkeeda iyo shaqada ay ka shaqaynayso ku caaya oo ku qusqusla gabadhaasna iskool ayay dhigan jirtay cid la fariisato ay saaxiib ay ku lahaydna ma leh maalin ayadoo shaqadeeda ku jirta ayaa gacanta waxaa ka gaaray dhaawac gabadhii halka ayay si xun ugu ooysay markaas ayay waxay maqashay cod waxayna bilowday meesha kasoo baxay codkaas inay raadiso markii dambe ayay waxay aragtay inuu kareem yahay kareem hadlayo markay aragtay aad iyo aad ayay u naxday gabadhii oo afka ayay gacanta saartay markii dambe go-aan waxay ku gaartay kareemka xaafadda inay keensato kareemkii wuxuu u sheegay in midabkeeda la xalin karo haddii ay marsato kareemka gabadhii kareemkii waa ay marsatay waxayna noqotay gabar aad u qurux badan maalintii iskoolka markay ay imaatay gabdhihii gabar ka mid ayaa soo raacday oo si ay usoo ogaato gabadhan siday ugu caddaatay gabadhii kareemka iyadoo la hadlayso in lagu soo daba jiro aysan ogeyn ayaa kareemkeedii la hadlayso gabadhii markii dambe ayay waxay ku dhahday aniga ayaan kaa qaadaha ogow gabadhii markii ay seexatay ayay kareemkii kareem intay ugu bedeshay ay gurigii meel ka mid ay soo gashay qolkii gabadhii waa ay soo kacday subaxdii ayadoo u malaysay inuu kareemkeedii yahay ayay la hadashay gabadhii guriga markii ay joogtana waxay marsatay kareemkii markii ay marsatay waxay noqotay gabar madow gabadhii ayaa qayladeeda kusoo baxday markaas ayay ku dhahday iska kii cafi aniga dadkaas ayaa soo direen inaan kusoo daba raaca ma rabin gabadhii ayaa dhahday aniga waxa qudad kuuma qabiye haddana waa aan ku cafiyey kareemkiina midabkeeda ayuu u celiyey sidii ayuu ku baaba'ay labadii gabdhoodna waxay noqdeen laba gabdhood oo saaxiibo xataa iskoolka isku raaca isna la dheedheela sheekadeenni halkaas ay ku dhammaatay fadlan haddii aad sheekada ka heshay subscribe noo saar like-na noo saar 800 wax yar ayaan kor dhiman waxaan rabaa inaad na gaarsiiseen waad ku mahadsantihiin